وربيجن مدالة الشيء حقو كيم يدكو مدالو بيه مارينا يوم بدلك وستيني مقالة بلو بيه هراء إيطاليا كمركو تشوق تشري صدح دقمة كلية بيمرين لها وحمرويني شنغاني أي عبد العزيز وحين كشرنا تضبط كي حرية مدة أيانا لقيت شو قدل كان أنت وقاطع مدح بناني ده يوجبني مدى waxaad dalalka adduunka astaan u ah oo lagu gartaa waa magaalo madaxdooda marka adduunweynaha laga hadlayo ee ragga quwadaha ku loolama ee adduunkan ku mataqaanaaye xaaladaha wax laga weydiiyo waxa la oranayaa Washington maxay qabtaa Mareykanku muxuu qabaa lama yiraahdo London maxay qabtaa Brussels maxaa laga leeyahay Soomaaliya marka arinteeda la warsanayo war meeshii Muqdisho ahayd maxay la isweydiinay waxaan rabaa horta ugu horeyn inaan si buuxda halkan hadaanuna xukuumadda federaalka idin la wadaagno maamulka gobolka iyo shacab weynaha magaalada Muqdisho in dawladda federaalku ay garab taagan tahay si weyn u garab taagan tahay maamulka gobolka iyo shacab weynaha sidii bilicda mataqaanaaye quruxda laamiyada iyo hanaanka guud ee magaalada loo qurxin lahaa loona hagaajin lahaa waxaanu qoraynaa anigu gudoomiye madaale labadii habeennimo saddexdii habeennimona magaaladaanu dhex maraynay roobabka markii ay de'een laamiyo dhammaan la wada dhisay dabaqyo dhaadheer oo aanay magaalada lahayn jirin populationkii loo jaangooyay drainage systemka ama biyo mareennada oo boqol jibaarmay haddii xamar lixdameeyada ay 100 kun oo qof ku noolaayeen maanta 3 milyan in ka badan baa ku nool sideetameeyadii markii dib loo eegayay mataqaanaa drainage systemka iyo biyo mareennada iyo sewage-ka intii ku nooleed way koobnayd maanta laakiin xamar waxa dhawaan dhamaanaya dabaq ah 25 dabaq soddon ayaa dhawaan dhamaanaya awalna saybiyana halbeeg inoo ahayd soo saas ma ahayn wasaydu ma 6 bay ahayd mise 5 4 6 baa halbeeg inoo ahaan jirtay maantana صدر شنقور بوتي بارمي سوما كوو كدادرنا ولا صودا وحمانتا كدسن مقالة مقدشو حافظة عاد صورنا يصور هالكلمة يوروبا هدي تكتو دار السلامية هدي تكتو مقالة عرفية عبد العزيز قريها لقد السيء حقا إيه هضن ديارة دمركي كل دول مرتو ورمن نيروبي بدول مرة السباد صورنا سامي ساعد السبابا ده بغير الدادر edismaya hadii magaaladani ay ku sheegnaan jirtay warloodo iyo dagaal oo ay astaan u ahayd qarankii dumay maanta kumanaan kun oo dhalinyaro ah imtixaanaadkii ku maray soo saas ma hadii ay afar laamiyo saa u mara lahayd iyo dhowr iyo afartan laami gooya halka iyo maxaa la yiraahdaa jidka warshadaha soddonka wadnaha miya afisoni soo inahaasi saas ma ahayno iyo afar xabogoye maanta gudoomiye madaalo kaliya marka la isugu celceliyay nambarkiisa 60 kilomitir maraya horta sida aynu u ildarannahay uma alaliin gobolka banaadir maamulkiisu wuxuu ku shaqeeyaa duruuf adag waayo magaalada muqdisho wixii qaranka ku dhaca culayska ugu badan baa iyadana ku dhaca haddii dalka lagu dagaalamo dagaalkii ugu cuslaaba ka dhacayay haddii laga qaxo qaxii ugu weynaaba ka dhacayay
haddii loolanka iyo hirdanka siyaasadda Soomaaliyeed lagu loolamayay halkana mataqaana fadhiisankii madaxda ahayd oo lagu loolamayay haddii fikrado khaldan iyo afkaaro iyo faragelin ay nagu imanaysana disproportional weight ayaa ku dhacay magaalada waa magaalo marka dadku ay develop gareeyeen resilience ay iskaga ilaaliyaan halisa laakiin resilience ki ay develop gareeyeen mid wuxuu noqday abaa mushtariguna isku tashado bahda waxbarashaduna isku tashato bagaashleyduna isku tashato culimadu isku cid waliba isku tashato hadda laakiin waxaynu marnaa heer taladii la isu geeyay oo baa mushtariga Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir intay iskaashadaan ba intaas wada dhisan soo saas ma wali faanole farqa ma qodna waxaan rabaa bal in yar inta aan ka fahmay magaaladan taariikhda ay soo martay xagga biyo-marinadeeda markaan culimada wareystay siyaasiyiintu shaqadoodu waxa weeye intay dadka inta wax garanaysa dhageystaan inay mikrofoonka la soo fuulaan oo dadka inta kale u sheegaan ma aha muhiim in uu siyaasigu wax walba aqoon u leeyahay laakiin waa in dadka aqoonta u leh ee ehelka u ah sida mataqaanaa Maxamed Nuur Caddo oo kale oo arintan muddo ka soo shaqeynaya heer gobol iyo heer mataqaanaa wasaaradeedba inaynu fahanno warwabigan madaale la sheegaya xagu ka yimi idinku madaalo bihi maaraynayo bad la kowsateen magaaladan bilowgii hore Italiyaanku markuu joogi jiray saddex degmo kaliya biyo marin lahaa waa Xamarweyne Shangaani iyo Cabdicasiis markii dawladnimadii ay kobacday ee gobolladii iyo goofafkii laga wada yimi ee reer Kooraad oo dhamay yimaadeen magaaladii waa weynaatay markay weynaatay nidaam cusub baa la bilaabay oo waraha aad garanaysaan ee magaalada ku dhex yaala ee siigaala ka mid tahay ee hawlwadaag ka mid tahay ee wardhigla ka mid tahay ee saa u teedsan ee boondheer ka mid tahay ayaa la sameeyay biyaha inna bacaadka nuugu jiray intii soo baxsatana meelahaas lagu keedin jiray oo si yar baa loo maarin jiray waa degmooyinka inahaas sideetameeyadii dambe markay magaaladii kortay xagga iyo hodan ilaa iyo ex control ilaa iyo wasaaradda gaashaandhigga dhismayaal cusub oo casri ah oo ay ka mid yihiin hospitaallo waaweyn iyo wasaarado waaweyn iyo xarumo dawladood waaweyn iyo meelo ay safaarado iyo hay'adaha caalamiga degan laga sameeyay waxa la sameeyay biyo mareenno iyo sewage isku lamaan ayaa la sameeyay oo intay halkaas soo maraan oo biyahan iyo waxaan isku darsamaan ay tagi jireen meel jasiiro ka sokaysa oo biyaha halkaa lagu sifayn jiray oo wixii wasakh laga reebi jiray inta kalena badda lagu sii deyn jiray wixii halkaa ka soo baxana ee sifayntaana bacriminta loo sii gudbin jiray 30 sano markaynu dalkii iska burburinay arrimaha gacan ba looma qaadin dhulkiina waynu wada dhisnay caawa xamar bogcad bannaan oo bacaad leh sida loo arkaa weerta waxa soo dabaqa iyo waxa soo dara ku nool awood ay kali mataqaana gobolka Banaadir oo arinta ku fulin karo lama arko waa sababta wasaaradda hawlaha guud halkan ay u joogto annaga oo xukuumadda halkii u sareysay aanu joogno waa arin la iska kaashan doono boqolaal milyan oo dollarka Mareykanka ah haddii aan bilyan bakor u dhaafayn ayaa ku baxaysa in la helo hab sustainable oo kobac iyo kororka ku imanaya ilaa magaalooyinku cilmi baa lagu maamulaa waxa la eegaa magaalada populationkeedu intee buu koraya waxa la eegaa dhismaheedu intee buu koraya waxa la eegaa infrastructure ku sidee isugu xirxiray intaas markaa bogcadiiba intee qof ba ku nool baa la eegaya xamarta horta xamartii aynu naqaanay
ee meeyarkoodu intuu u liska qaato iska dhex lugayn jiray hadda u sheeg madaalada dambe maahe waa tii hore ragga militarigu ay haysan jireen oo roobku markuu da'o ma taqaanay saacad gudaheedba ay biyuhu liqi jireen ma aha waa magaalo la tartamaysa magaalooyinka adduunka waa magaalo 3 milyan iyo badh ay ku nool yihiin waa magaalo badeecada iyo dekada waxa ka soo dega iyo say dalka ugu xiran tahay saameyn ku leh suuqweynaha Afrika marka hal abuur cusub iyo fikir cusub bay u baahan tahay waxaanu bogaadinaynaa barnaamijkan biyo mareennada lagu jaangoynaya laakiin waxaanu iyana dalab u wadnaa hay'adaha arrintan ku lug leh in dib u eegis lagu sameeyo si la isu waafajin lahaa biyo mareennada wasiirka hawlaha guud halkaas soo fadhiya iyo sewage systemka xaalad caafimaad oo adag bay dalka gelin kartaa cudurro faafa ayaa jira marka biyuhu iyo wasakhdu ay isdhex gasho arrintaasi waxaanu ka eegaynaa dhan caafimaad waxaanu ka eegaynaa dhan dhaqan dhaqaale waxaanu ka eegaynaa dhan qaran dhis iyo bulsho walaalayaal marka ummadda Soomaaliyeed iyo khaasatan shacabweynaha gobolka Banaadir waxaan la wadaagaynaa laba cisho adigu bil muddo laga joogo waxaan maalintan soo joognay magaalada Jowhar waanu ka baxnay waxaanu tagnay meel la yiraahdo Sabuun 170 milyan oo dollar baa waxa la gelinayaa in kanaalka la furo 100 milyan oo dollar waxa la gelinayaa in Muqdisho biyaheeda wax laga qabto dhismayaasha barnaamijkan oo magaca dawladda lagu fuliyo waa run deeq bixintu waxa laga yaabaa inay dibad ka timaado laakiin deeq bixiyuhu wuxuu wax amaahiyaa ama wax siiyaa ama wax ku deeqaa waa qaran ee maaha meel joogta iyo ummad ma taqaanay meel geel ku dhaqanaysa ama dad sharci darra ku nool haddii aad ka soo bilowdo magaalada Garowe waxa laami laga dhisay ee barnaamijkan uu ka dhisay wasaaradda ay gacanta ku hayso waad yaabaysaa dhuuso mareeb dhismaha ka socda horumarka ka socda waa wax la taaban karo la qarin karo meesha ilaa iyo ma taqaanaa Kismaayo Baydhabo guulahaas markay isgaargaaraan baa ninkii baac mushtariga ahaana uu badeecadiisa si fudud u gudbinaya ardaygiina uu si fudud iskuulka u imanaya nolosha ummaduna ay u hagaagaysaa xukuumaddan waxyaabaha halbeega u ah waxa ka mid ah xilligii dadka la oran jiray qabandi iyo ha loo qaybiyay saliid iyo wala soo dhaafay wax soo saarna waxa aasaas u ah dad caafimaad qaba meel caafimaad qabta ku nool infrastructure-na leh kaabayaashii dhaqaalaha waxaan filayaa dadka Soomaaliyeed inay ka dheragsan yihiin dadaalada wax ku oolka ee laga wada dhanka korontada ee dawladda Soomaaliyeed iyo ay iska kaashanayaan baac mushtariga Soomaaliyeed dhanka biyaha maalinba maalinta ka dambaysa duruufta biyaha ee dalku khaasatan magaaladani way soo hagaagaysaa dad baa tacab geliyay oo waqti geliyay oo juhdi geliyay dawladdu marka haddii aanay intay ceelisha biyaha rakabato iyadoo dadka biyaha u geeni karayn waa inay u mahad celiso dadka hawsha qabanaya lana xaqiijiyo barayska dadka biyaha lagu siinaya inuu yahay mid macquul ah arrintan haddaan ku soo noqono waa run waan ku raacsanahay gudoomiyaha warkiisa in la dedejiyo projectkan in la dedejiyo oo waqtigii loogu talagalay ay ku dhacdo kow in doorka dawladda federaalka ee ah wacyigelinta raadinta maalgashiga korjoogtaynta garabsiinta ma taqaanaa maamulka in aanu xoojino maamulkuna uu dardargeliyo hawlaha hay'adaha fulinaya xilligii Soomaaliya wixeedu ay iska furnaan jireen waa la soo dhaafay dadkii Soomaaliyeed waxay dalbanayaan wax qabad mar haddii nabadi timi oo maantaba ceeldheer iyo aadan yabaal iyo runirgood iskuulaad lagu dhiganayo 2 sano ka horna aadan yabaal ay ka furnayd xarun weyn oo khawariijtu ay wax ka hogaamiso adeeg baa laga sugayay adeega ugu horeeya meesha muraayada ah ee laga cabirayo dadka Soomaaliyeedna waa magaalada Muqdisho
sugaan fara badan baa ka hadasha ama hadraawi gabagiisii ha noqoto uu lahaa xaruntii dalkaygay xamar ee nabadba ama heesta ay qaari jirtay maxay ahayd hoboladii weyneed hibanuura ay leedahay xamar waa ma dhaafaan waa muraayadii laynagu eegayay mudane gudoomiye hawlwadeennada gobolka habeen iyo maalin iyagoo ama qashanka guraya ama wadooyinka ka shaqaynaya ama dadaalaya baanu aragnaa laakiin dadka online jooga maalinta biyuhu bataan bay arkaan sideedaba haddii dadku markay wax qabtaan aan la abaal marin oo la bogaadinna dee maalmaha xunub baynu ku soo ururana waa kii madaxweynuhu sheegaya dadka maalmaha qiyaamaha sheega qiyaamo iyo wax khariban baa laga soo warramayaa xamar sidii ay ahaan jirtay sanad ka hor maaha laba ka hor si ahaan jirtay maaha 10 ka hor si ahaan jirtay maaha dadaalkaas waa dadaal bulshada Soomaaliyeed iyo dawladnimo ku yimi macid baa waxa dhisan jirtay meeshan markii ay bahla galeen kahay way iskaashanayeen dadaalada amnigu kuwa siyaasaddu meel bilaa dastuura oo bilaa sharciya cidna maal gashan mayso laakiin marka sharciyad la helo oo dastuur la helo oo dad sharci ku nool la helo waa lagu soo dhiiranaya dadka Soomaaliyeed kama dadaal yara kama aqoon yara kama dadnimo dadka kale ee waay adag baa soo maray waayihiina waynu ka soo baxaynaa gudoomiye waanu kula shaqayn doonaa wasiirka oo nin aad u firfircoona ayaa hawsha gacanta ku haya waxaan rabaa inaad si dhow wada shaqaysaan